wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa ay maanta soo gabagabaysay qaybtii labaad ee tartanka farshaxanka oo ay ku tartamayeen qaybo kamid ah ardayda wax ka barata iskuulada magaalada Kismaayo. Tartankan ay soo qabatay wasaaraddu ayaa waxa ay ugu gol lahayd sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa cunitaanka kalluunka oo kamid ah cunooyinka waxtarka u leh jirka bini'aadamka. Qaar kamid ah ardayda ka qayb galaysay tartankan farshaxanka kalluunka ayaa ka warbixiyay dareenkooda ku aadan tartankan. iskuulkayga waxaa u rajeynayaa inuu kaalin fiican ka galo tartankan oo ku saabsan farshaxanka kalluunka oo ay qabanayso wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland. Kalluunka wuxuu leeyahay faa'iidooyin aad u tiro badan, waxa uu kordhiyaa maskaxda, sidoo kale wuxuu fitamiin C jirka, indhahana u roon yahay bulshada oo kalluunka. Magacaygu waa Cabdi Cabdullaahi Maxamuud, waxaan dhigtaa iskuulka Badar. Waxaan ka qayb galay tartanka farshaxanka kalluunka oo ay qabanaysay wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland. Kalluunku wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan oo ay ka mid yihiin wuxuu dhisaa maskaxda, wuxuu koriyaa jirka. sidoo kale agaasimaha wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland Cabdishukri Carab oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimadda tartankan laga leeyahay, isagoona sheegay in ardayda ay yihiin mid ka mid ah wasiiladaha wax lagu gaarsiiyo bulshada. waxaan maanta soo gabagabeynay wejigii labaad ee tartanka farshaxanka aan u qabanay iskuullada ku yaala magaalada Kismaayo. tartankan oo qayb ka ahaa olole wacyigelinta faa'iidada cunista kalluunka oo wasaaradda warfaafinta ay ka waday magaalada Kismaayo. run ahaantii maanta ayuu wejigii labaad inoo soo gabagaboobay. tartankan wuxuu isugu jiray laba qayb farshaxan kalluunka ah oo ardayda ay uga qayb qaadanayeen qaab sawir gacmeed ah iyo qayb kale oo iyadana riwaayado ah. marka qaybtii farshaxanka ayaan soo gabagabeynay maanta. ujeedkana wuxuu ahaa in ardayda ay soo saaraan hal abuurkooda farshaxaneed iyo maaragtay aqoontii ay u leeyihiin inay ardayga u wax alifo ama fikrad ku salaysan mala awaal inuu ardayga la imaado. wasaaradda warfaafintana ay farshaxanka ay soo gudbiyeen ardayda intay dib u habeen ku sameyso ay daabacaad ka sameyso kadibna dugsiyada iyo fasalada loo kala qaybiyo. wuxuuna qayb ka yahay olole wacyigelinta cunista faa'iidada cunista kalluunka. waxaan rajaynaynaa marka ardayda farshaxanka ugu fiican soo gudbiyey in guddiga wasaaradda warfaafinta ay u xil saartay soo xulista farshaxanka ugu wanaagsan inay u fariistaan kadibna ay ka soo saaraan sawir gacmeedka ugu wanaagsan oo aan rajaynayno inaan dugsiyada ka qayb qaatay ee kaalinta fiican ka galay inaan abaalmarin wanaagsan ku siino. tartankan ay soo gabagabaysay wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa uu yahay mid lagu dhiirigelinayo bulshada cunista kalluunka oo ka mid ah kheyraadka dalka.